طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب، نسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وأنر طريقي كي أراه يطيب، وأنر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل هذه الوجوه وجوه طيبة مباركة راضية عن الله عز وجل. intaa ka gadaal waxaan marka hore iyo mar kastaba isu dardaarmayna ilaahi subxaanahu wa tacaala cabshidiisa, waayo waa asaaska wax kasta in la isu dardaarmo ilaahi subxaanahu wa tacaala cabshidiisa. marka sida awgeed ayaa naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano mar kasta iyo meel kastaba, yani meel kastoon joogno iyo waqti kasta iyo xaalad kasta aan ku sugannahayba, waa ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano. waxaa la ii siiyey waa kelimad yar oo ku saabsan furitaan aynu furayno tartan dowladan loogu talagalay in wacyigelin loogu sameeyo ardada ama dhalinyarada xaafadda. marka waxaan doonayaa wasiyooyin ama dardaarano kooban in aan daqaa'iqadaas ee la ii siiyey aan ka iraado halkaan. wasiyada koowaad waa taan idiin sheegay oo ahayd ilaahi subxaanahu wa tacaala cabshidiisa. taa waa waxa qofka muslimka ama qof kasta oo muslima u dardaarmo walaalkii muslimka ah, waa ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan ka cabsano, ogaanona inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala mar kasta ina muraaqabaynayo, nala socdo, xaaladeena la socdo. waayo haddaad bani aadam iska qariso ilaahi subxaanahu wa tacaala iskama qarini kartid. yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum. haddaad bani aadam iska qariso dadba ku arki maayaan oo waxyaaba aada la gooni noqoto, ogaagu ilaahi subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisa ama ilaalintiisa ama ishiisa inay kula socoto oo mar kasta ay yani ilaahay uu kuu jeedo ku ilaalinayo. wasiyada labaad oo doonaya inaan ii dardaarmo waxaa weeye in la ilaaliyo salawaadka shanta ah. salaadaha waxay qofka muslimka u hogaamiyaan ama dhalinyaradaba aan iraahde in aada noqoto nin ama qof toosan inaad noqoto. kullama aada salaada ku dadaasho waxaad ogaataa inaad tahay qof ilaahi subxaanahu wa tacaala ka adlo, waayo waxa ugu weyn oo qofka muslimka iyo allah ugu dhawaado waxaa weeye wixii ilaahay uu ku farad yeelay inuu la imaado. waxyaabahana waxaa ugu weyn salaada. marka ogaaw shanta salaadood inaad ku dadaasho, ilaaliso, nawaafisha aada raaciso, waayo waxay ku yeelaysaa nuur iyo iftiin iyo inaad noqoto qof ka soocan bulshada inteeda kale. qofka salaadaha aan tukanin ee ku ciyaariyo amaba ka tagaba wejigiisa waxaa saaran mugdi. dadka kale waa laga garanayaa, dhalinyarada kale uu ka soocan yahay, wiil ama gabar wuxuu doona ha noqde waa la yaqaana. hawshiisa iskuma toosna,
xagga waxbarashada kuma fiicna wax walba uu ka liitaa waayo taa waxaa keensanayso ka tegitaanka uu ka tagay salaadaha marka qodobka labaad waxaan isu dardaarmaynaa waa 5 salaadood in la xifdiyo qodobka saddexaad waqtiga ama jaaniska ama fursadda aad haysataan inaad ka faa'iidaysataan oo uga faa'iidaysataan wax kasta oo anfacaya naftiina barina ilaahay subxaanahu wa tacaala idin dhaweynayo inaad uga faa'iidaysataan waqtiga waa wax يعني waxaa lagu cabiraa sida birida ama hilaaca waxaad u taqaanid oo kale saasuu ku mara dib dabara uguma soo laabto laxdaadkan daqiiqadahan hadda hadlayno way tegayaan dibna nooguma soo laabanayaan marka waa muhiim qof walba waqtigaada inaad xisaabsatid ood ka faa'iidaysatid haddaad rabto inaad ogaatid waqtiga wuxuu dhihi jiray ninkii shaacirka cabay daqaatu qalbi lmar'i qaa'ilatan lahu إن العمر من دقائق وثواب إلى يوم هو ركبي ساعات مو حساب وقت هذا يا قالوا يا ساعات قفي قالوا لي هجرة يا ودنها كوجرو وتوقو حسابنا يا عمر قال يا وقت هذا لوا تدوات الجير أما تدوات لوا الجير حتى عمري وكل دويني هاي المهيريات بحد حادثة قفوا وين وذاك تدوات لوا الجير مركو دم وكو حسابنا يا هل دقيقة وقت هذا مركو دماغه ويستاغيا مركو يستاغو وحال دماغه نولشاد سوساسمنا نولشاد halkaas ku dhamaa marka ilaahay kugu rakibay waqti saacad lagu xisaabinayo saacadaada marka isku dayin wax xun inaad uga faa'iidaysato waxaad uga faa'iidaysataa wax wanaagsan waxbarasho quraan akhris ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa inaad waqtigaada aad ilaashato kala qaybsato isku day dardaaranka afraad waxaa weeye in badan oo dhalinyarada ah waayadan waxay raaceen amaba dabagaleen dadka gaalada waxay sameeyaan wax kasta oo iyaga sameeyaan waxay u maleeyaan inay tahay horumar development inay tahay يعني midka aan samaynin waxa laga yaabaa inuu aaminsan yahay in uu bulshada ninka qofka ugu liita uu yahay mid baa madaxa waxaad arkaysaa jeego xiranaya maxay ahaydeen surwaal wuxuu qaadanayaa dhammaaday oo jeexjeexan oo waxba siisanaynin qaab socodkoodii uu soconayaa surwaal ku dhegan oo noociisaba jirka soo sawirayo xiranayaa gabadhii sidii oo kale يعني waxyaabaha iyaga la midka ay sameynaysa marka in iska ilaali inaad dadkaasi waxa ay sameynayaan aad u malaysid wax wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu noloshooda ka hadlayo wuxuu dhahay yaclamuuna daahira min alxayaati addunya nolosha qofka bani aadamka 4 marxaladood u mara marxalada koowaad waa midda caloosha hooyada ku jirto soo midda labaad waa mid aan joogno hadda ee adduunka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala banaanka ugu keenay midda saddexaad waa qabri ayaad gelaysaa midda afraad waa qiyaamaha janno ama naar marka afarta marxaladood iyagu waxay og yihiin oo keliya marxaladda hadda aynu ku jirno oo ah joogitaankan halkaan joogno laakiin waxa dambeeyo aakhira iyo adduunya badan ya aakhira badan soo maaha midda badan war uma hayaan ilaahayna wuu sheegay waxa dhaldhalaalka adduunka iyo waxa unbay og yihiin hadday taa ogaan lahaayeen ama ay ka fikiri lahaayeen waqti badan ay ku bixin lahaayeen marka samayni ama iska ilaali inaad dadkaas aad raacdood u malayso waxa ay samaynayaan inay tahay wax wanaagsan maaha iska ilaali wax wanaagsan maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wax wanaagsan ku tegi maayo dardaaranka shanaad waxaa weeye badi ilaahay dikrigiisa xusida ilaahay subxaanahu wa tacaala daqiiqadaha uu kalaaska macalinka ka maqan yahay ama baad iskuulka u socotid ama aad fadhidid inaad ilaahay xusto astaqfirullah subxaanallah alxamdulilah laa ilaaha ila allah allahu akbar wanaag aad u badan ayaad ku gaaraysaa
albaaba fara badanna ilaahay subxaana wa tacaala kugu furaya culays fara badan oo ku haystayna rabbulcaalamiin oo kaga qaadaya xitaa fahma darada haddii xoogaa cashiraday kugu adkaadaan fahamka inaad waxaan fahamto hadduu kugu cuslaado oo dikriga ilaahay badiso ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuu furaya salliga nabiga sal allahu alayhi wasalam badi u fiirso tijaabi haddaad samayso waxaad arkaysaa cashiradii kugu adkaani jiray iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu fududeeyey tijaabiya dardaaranka lixaad waxaa weeye inaad maadaama aad tahay qof dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro inaad ilaalisid nadaafadda islaamka mar wuxuu jecel yahay inaad ahaatid nadiif waxaa la rabaa markaad soo baxaysid tinta soo shallayso qubayso dhar nadiifa soo qaado nadaafadda islaamka wuxuu dhaha nadaafatu iimaanka badkiisa weeye ku dadaal nadaafadda weliga ahaa qof nadiifa qof ustag badano markuu qofka soo agmaro ama agtaada uu soo agmaray isaga dhan maxay aheedee ur iyo wax ustag ka soo urayo ha noqonin ku dadaal nadaafadda waxaad noqonaysaa qof wanaagsan oo mujtamaca bulshada laga dhex jecel yahay dardaaranka toddobaad waxaa weeye dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarrada iska ilaali qof walaalkaa ah ama wiil walaalkaa ama gabar walaashaa ah ha ku xadgudbin ha dulminin iska ilaali waayo dulmiga hadduu ilaahay subxaana wa tacaala kuu baryaayo meel xunu ku gaarsiinay cidnaha dulmin cidnaha gardaraysanin cidnaha ku xadgudbin dadka mujtamacaas ixtiraam adigana waa lagu ixtiraami laguma dulminayo cid wax ku yeeli mayso saad ku soco midda sideedaad waxaa weeye waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu jecleen oo dhan iska ilaali wax kasta naftaad diidayso wax kasta ilaahay u necib yahay adigana waxaa la rabaa inaad iska ilaalisid inaad ka fogaansid akhiiran wuxuu kusoo gabagabeynaya laba dardaaran midka sagaalaad waxaa weeye labadii waalidoo ku dhashay ixtiraam baarinimo adeecid inaad siisid ayaa laga rabaa waalidiintaada ka dambeeya adeec baarinimo u samee hadalka ku celin iska ilaali waayo labada waalid hadday ku inkaaraan way ku dhamaatay adduunya aakhiraba noloshaada way u dhamaatay waalidkaaga baarin si khaasatan hooyada aad ayaa la rabaa inaad hooyadaada uga dambayso waayo way ku dhashay 9 bilood caloosha kuu siday adduunkaa dhimaatay way ku ilaalisay waxay kugu leedahay xaq aad iyo aad u weyn qofna ma gudi karo xaqooda marka waxaa laga rabaa labadii waalid oo ku dhashay haddaad doonayso inaad wanaag gaarto oo meel sare aad gaarto oo mujtamaca iyo bulshada aad ku dhex nooshahay aad ka noqotid hadhow beri qof qaad hogaamiye ah oo ummadda ay ixtiraamto ka dambayso labadii waalid oo ku dhashay baarinimo u samey labadii waalid oo ku dhashay ha caasinin labadii waalid oo ku dhashay wax ay ka caroodaan amaba ka xanaaqaan ama ay nacaan ha samaynin iska ilaali saasaan isku ognay sooma labadooda markaad aroorta soo baxayso ood imaanaysid dugsiga ama madrasada ama iskoolka madaxa ka soo shub lugaha ka soo shub markaad guriga ku laabatidna sidoo kale samee inta haddaad samaysid way ku jeclaanayaan sooma isilaali qodobka ugu dambeeya ee tobnaad ee aan doonayo inaan idiin dardaarmo waxaa weeye waa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaanteeda qur-aanka waan akrinaa sooma laakiin waxaa la rabaa in uu noqdo qur-aanka ama ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa inuu ku noqdo sidii quraacdii iyo qadadii iyo cashadii lagama yaabo inaad hilmaamto mid ka mid a intaa haddaad quraacdii hilmaamto qadadii ma hilmaamaysaa cashadiina
إلهي كتاب كيسا وحالغا ربا ساعة عمل إنوكوها قرح يصوبحن يعني يكون لعن أديو كتاب إلهي سبحانه وتعالى دقس هذا أخرين أديو الأخرين كلافورين سكود مالكي وحالها كوردي ولو شن آيات القرآن هذا سكود إن كتاب إلهي سبحانه وتعالى تحفظه وأيوه وحنين شيء يا إلا سدح فائدة وأولي هذا القرآن كحفظه وإلهي درتي سأحفظه قلت إلهي قلبي هذا وحوك إلى لنا يا قرن يوسخ يحقد يحسد يوحصد إلهي أبقى إلى لنا وإلهي كلام كيسة يوحيابها حن سكمل مقالات وقدر تقوى قدر كاللوات وحال أركيسا هذه وضد كده بيكون عليهم بيكون سروين يان أو يعني ضد وحلقة هرمرنا يا ضد وين سبحان الله نقول بيار واللي كان صلاة النتوجي أيضا ضد كي مدحدي مدحينياشي يوزردي يو برلمان كي ضد كده نيجوعان قف كاسي محاور مريم ويلكاير محاور مريم يا إلهي كلام كيسا سوما ها كدلان إن الله ينفع بهذا الكتاب أقواما ويذل به آخرين إلهي سبحانه وتعالى ضد الكتاب كان يسار أو قاطع ضدنا إلهي كد ليا هذا إلهي كلام كيسا أدخل الصوت يعني وقدر كلام ضد كتن ويكون جعلنا يانو ويكون سروين يانو ويكون هرمرنا يانو ضد كلام أديك أو سرية qodobka saddexaad waxaa weeye markay dadka dhintaan oo la geliyo qabriga dadka waxaa cuna dixiri cuna soo aboor iyo dixiri iyo waxbaa cuna qofka jirkiisa wuu dhamaadaa qofka ilaahay kalaamkiisa xifdisan jirkiisa ilaahay u xifdiya sidii uu ahaa waxba ku cuni maaya inta aad qabriga ku jirto ilaahay ku badbaadinaya qof waxaad ahaanaysaa iska seexday hurday camal maalinka qiyaamo marka lagu soo saarana waxa lagu leeyahay akhri jannadii wata galo akhri quraan meesha aayada ugu dambaysa aad yani oo xifdisantahay aad gaarsiiso jannadii halkaas aad ka leedahay ka gal qofka quraanka wada xifdisan ka waran ya intuu ka galaya meesha ugu sareysa soomaa قرآن يساعدون يا يقال لكم يا يقال قرآن يساعدون لكم لا بصدني لا بصمين شيخ انت سؤال مركب كل دلالة هنا ابتسام إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسا waxa ugu horeeyo akhriso hal noqdo markaad aroorti soo toosto quraan waxa ugu dambeeyo markaad seexanayso akhrinayso hal noqdo isaga aad loogu dadaalo waxa ilaahay u ballan qaado qofka kalaamkiisa akhriyay in uu ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana ka soo dadka waayo dadka quraanka ah waxa loo yaqaana ahlullahi wa khaasatuhu dadkaas waxa iskale ilaahay isagana gooni u yihiin waa dadka si gooni ah uga fiirsado mujtamaca bulshada inta kale dadka ay jecel yihiin waa aragteen dadka quraanka wafaada ah codka macaan ku aqriyo dadka dhan iska jecel marka si aad kuwa uga mid u noqotaan ku dadaala inaad akhrisaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa intaas ayaan ku soo gabagabaynaya inta inaan dardaaranka tobankaas dardaaranaad qabsataan aynu dhammaantayada ku wada dadaalno sala allahu wasalam calaa sayidina maxamed طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي
طريقي كي أراه يطيب